السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتكم muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago aqalka sanadka oo ugu dambeyn xalay ansixiyay sharci dowladda Mareykanka dib loogu furayo iyadoo waliba ay xiran tahay maanta maalintii 42 dimuqraadiyiinta sharcigaasi waa ay ku kala jabeen muxuu yahay balaqaadka ay u sameeyeen Republicaanka ma laga yaabo inuu suura galo haddii uu suura gali waayana dowladda haddii ay mar kale dib u xiranto marka muddadan kooban oo la maalgelinayo miisaaniyadeeda la ansixiyay ay dhamaato yaa eedeeda qaadan doona arrimahaasi oo ayaan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada maanta dowladda Mareykanku waxay xiran tahay maalintii 42 waa muddadii ugu dheereed taariikhda Mareykanka oo dowladda Mareykanka muddo intan la ega aan la fangareynin isla markaana shaqada dowladdu ay hakad ku jirto muddadii ugu dheereed waxay ahayd 35 maalmood waxayna dhacday xilligii hore ee Trump oo madaxweyne ahaa 2018 dhamaadkiisii ilaa iyo horaantii sanadkii 2019 waxaan ogeyn axadii in 5 xubnood oo dimuqraadi ah ay heshiis la gaareen xubnaha Republicaanka ee ku jira aqalka sanadka sharcigan waxa uu baahnaa 60 cod in lagu meel mariyo si dowladda loo furo waa simple majority lagu meel marin karo filibusterka haddaan la isticmaalin waxa uu baahnaa sharcigan 60 cod Republicaanku markii horeba oo dowladdan ay xirmaysay 1 bishii 10 ee October 3 xubnood oo dimuqraadiyiin waa ay haysteen oo dhinacooda la jiray isla markaana doonayay in dowladda la furo laakiin maadaama 53 ay aqlabiyadda ku hayaan xisbiga Republicaanka waxay u baahnaayeen 7 xubnood oo dhinaca dimuqraadiga ah inay ku raacaan si dowladda dib loogu furo sharcigan dowladda dib loogu furayo marka 53 lagu daray 3 oo horey ay u haysteen oo dhinaca dimuqraadiga waxay u baahnaayeen in ay helaan 56 ayay noqonaysaa waxay u baahnaayeen 4 xubnood si 60 cod ay u helaan sharcigan ay u ansixiyaan dowladdana ay dib ugu furaan laakiin ugu dambeyntii axadii 5 xubnood oo dimuqraadi ah ayaa waxay ogolaadeen oo ay hore ugu raaceen saddexdii hore oo xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo Republicaanka ku taageersanaa in dowladda dib loo furo 8 xubnood oo dimuqraadi ah ayay sidaasi ku noqonayaan marka codad ku filan xisbiga Republicaanku waa ay heleen si sharci aqalka sanadka uu u meel mariyo isla markaana sharcigaasi uu u noqdo mid loo gudbiyo aqalka wakiiladuna ay meel mariyaan xubnaha saddexda ah ee markii horeba taageersanaa oo dowladdu ay xirantay in dowladda dib loo furo saddexda xubnood oo dimuqraadiga waxay kala ahaayeen Senator Catherine Cortez Masto oo Nevada laga soo doorto John Fetterman oo laga soo doorto Pennsylvania iyo waliba Angus King oo Maine laga soo doorto laakiin madax bannaan laakiin waxa uu la codeeyaa marka ay cod noqoto aqalka sanadka dhinaca dimuqraadiyiinta ayuu la jira marka 5 xubnood oo axadii heshiiska la gaaray xisbiga Republicaanka isla markaana 8 ka dhigay xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku taageeray sharcigan xalay in xisbiga Republicaanka in la meel mariyo waxay kala hayeen Senator Dick Durbin oo ah ninka labaad ee aqalka sanadka oo Jack Schumer ku xiga oo Illinois laga soo doorto Maggie Hassan oo laga soo doorto gobolka New Hampshire sidoo kalena Tim Kaine oo laga soo doorto Virginia iyo sidoo kalena Jackie Rosen oo laga soo doorto Nevada marka 5taasi xubnood ayaa Republicaanka axadii la heshiiyay waxayna yiraahdeen waan ogolnahay in dowladda dib loo furo haddii qodobadan la meel mariyo qodobada waxaa ka mid ahaa in shaqaalihii dowladda federaalka ah ee shaqada laga ceeriyay oo ilaa iyo 700,000 kor u dhaafayay dib loo soo celiyo mushaarkoodii intii ay dowladdu xirneedna la siiyo arrintaasi Trump waa kii yiri shaqaalaha qaarkood sooma celin doono kuwa qaarkoodna mushaarkooda ma siin doono waxyaabaha lagu heshiiyay ayay ka mid tahay in dowladdu ay sii shaqayso miisaaniyaddan muddada kooban ilaa iyo 30 bisha koowaad ee January ee sanadka soo socda ee 2026 iyo in xisbiga dimuqraadiga ay soo diyaarsadaan sharci dhinaca caafimaadka Obamacare ah ama Affordable Care Actigi isla markaana ay Republicaanku ay u codeeyaan isla markaana la meel mariyo maxaa yeelay Obamacare waxa uu ku egyahay 1 ama dhamaadka bisha December ee 12aad 1 bisha January lacagaha premiumka oo bil kasta ay dadku bixiyaan sara u kacaya ku imaanaya dimuqraadiyiintuna arrintaasi ay diidan yihiin sidaas darteed ayaa waxa ay yiraahdeen waxaan doonaynaa si lacagaha dadka shacabka ka caymiska caafimaadka ugu qaaliyoobin waa in sharci la meel mariyaa isla markaana meeshiisa uu joogo arrintaasi ay ahayd marka arrinta la isku hayo dimuqraadiyiinta marka waxa la leeyahay waa isdhiibeen oo Republicaanka ay isku dhiibeen
afartan maalmood kadib markii dowladdu ay xirneyd. dimuqraadiyiintuna waxay leeyihiin annagu shacabka ayaan u danaynay maadaama dhibaatooyin fara badan oo kaarkii cuntada ay ka mid tahay duulimaadyadii ay ka mid yihiin saameyn ba'an ay dowladda xiritaankeeda ay ku yeelatay shacabka ayaan u danaynay. haddaba waa kan aqalka sanadku xalay markii sharcigan ay meel mariyeen oo 60 cod lagu meel mariyey 40na ay diiday. dimuqraadiyiinta sida muuqata intooda badan sharcigan waa ay diideen oo arrintoodii waa ay ku taagnaayeen laakiin iyagii ayaa kala jabay. sidaas darteedna aqlabiyad yar ayaa dhinaca Republikaanka raacday oo sharcigaasi in la meel mariyo ku raacday. waa kan xalay markii aqalka sanadku ay ku dhawaaqayeen in sharcigaasi la meel mariyey iyo waliba gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka John Thune oo sheegay inuu ku faraxsan yahay in ugu dambeyn sharci dowladii dib loogu furayo maadaama muddadii ugu dheereed ee taariikhda Mareykanka ay xirnayd sanadku ay meel mariyeen. waxaana sidoo kale jirta in afayeenka aqalka wakiilada uu isaguna ka codsaday dhammaanba xubnaha aqalka wakiilada inay si degdeg ah Washington ugu soo laabtaan maadaama arrintan ay degdeg tahay isla markaana la meel mariyo sharcigan aqalka sanadku ay meel mariyeen. bal wax yar ila daawada. On this vote, the ayes are 60, the nays are 40. The bill as amended is passed. Under the previous order, the motion to reconsider is considered made and laid upon the table. This has been a very long road, quite literally the longest shutdown in history. I am very, very happy to be able to say that we are coming to the end. You need to begin right now returning to the Hill. We have to do this as quickly as possible. waatahay sharcigan marka xalay aqalka sanadku ay meel mariyeen aqalka wakiilada ayuu u soo gudbayaa maadaama kii hore oo 18 bishii sagaalaad ay meel mariyeen aqalka wakiilada isbedel lagu sameeyay. sharcigu haddii labada aqal midkood uu meel mariyo oo midka kale u gudbo isla markaana wax laga bedelo kii markii hore ansixiyay dib ayuu ugu soo laabanayaa maadaama isbedel lagu sameeyay si ay u meel mariyaan. marka xubnaha aqalka wakiiladu fasax ayay ku maqnaayeen laga soo bilaabo 19 bishii Sebtembar ee sagaalaad ilaa iyo markaasi wax shaqo ah ma aysan qaban oo deegaanada laga soo kala doorto gobolada ayay ku kala maqnaayeen. shalay afayeenka aqalka wakiiladu waa ka yiri waa inay si degdeg ah u soo laabtaan laakiin arrintaasi waxaa saameyn ku yeelanayso duulimaadyada faraha badan ee wadanka qaybo kala duwan la kansalayo iyagoo diyaaradaha qaasa ma lahan diyaaradaha shacabku ay ku duulaan publica ayay soo raacaan. marka isbedel ayaa ku iman karo. marka maalinta beri ah ayaa la filayaa gelinka dambe in sharcigan sanadku xalay ay meel mariyeen oo dowladda dib loogu furayo aqalka wakiiladu ay u codeeyaan. haddii ay ansaxiyaan oo isku raacaan isla habeen dambaba waxaa loo geynayaa madaxweynaha si uu qalinka ugu duugo. marka dowladdu weli ma aysan furmin labada aqal mid ka mid ah ayaa sharcigan meel mariyay kan kale markuu meel mariyo oo madaxweynuhu uu saxiixa ayuu sharci noqonayaa markaasi kadib ayay dowladdu furan tahay. marka maalinta beri ah xitaa way ku sii darsami doontaa waxay noqonaysaa maalintii 43aad oo dowladdu ay xirnaato. haddii marka habeen dambe haddii alla idmo oo sharcigan aqalka wakiiladu ay meel mariyaan madaxweynuhuna uu saxiixo markaasi ayuu sharci noqonayaa markaasi kadib ayaa dowladdu ay dib u furan tahay. xisbiga dimuqraadiga ma guuleysteen mase waa guuldaraysteen. si haddii loo furiyo dadka siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin horta iyaga ayaa hadda waxa ay qaadanayaan in iyagu ay mas'uul ka yihiin in dowladdii dib loo furo maadaama ay arkeen dhibaatooyinka fara badan ee ka dhashay xirnaashaha dowladda. waxay go'aansadeen balkaadi badana waa loo gogol badiyaa in xubnaha Republikaanka ay fursad siiyaan amaba Soomaalidu waxay yiraahdaan afeef hore lahaw ama adkaysi dambe lahaw. Republikaanku marka hadda haddii dowladdu ay dib u xiranto haddii alla idmo 30 bisha January ee sanadka 2026 markaasi ay xiranto mas'uuliyadda iyaga ayaa qaadan doona. maxaa yeelay dimuqraadiyiintu hadda waa tanaasuleen waxay yiraahdeen war Soomahan dowladda hadda waxa ay sharci inay u xiran tahay oo kaliya caymiskaasi caafimaadka ah ee dadka ka dhacaya dhamaadka bisha December ee 12aad ee sanadkan oo dadka ay ku qaaliyoobayso bil kasta lacagta ay bixiyaan waayahay arrintaas waxaan ogolnahay in sharci gooniya laga dhigo bisha soo socotana loo codeeyo. xitaa weli damaanad qaad ma haystaan in labada aqal ee sanadka iyo weliba aqalka wakiilada xubnaha Republikaanku ay u codeyn doonaan maadaama Trump uu ka soo horjeedo Obamacare uu leeyahay isaga dhanba waa in meesha laga saara magacaasi Obama ayuu ka urinayaa waa aniga shalay idin sheegay. marka waxa la leeyahay hadda xubnaha Republikaanku inkastoo hadda waxa la leeyahay marka xubnaha dimuqraadiyiintu inkastoo ay ku kala jabeen sharcigan haddana iyaga ayaa waxa ay qaadanayaan in iyagu ay hadda mas'uul ka yihiin in dowladdii dib loo furay. markii hore shacabku waxay ku eedeynayeen maadaama Republikaanku labada aqal aqlabiyadiisa iyo madaxweynihii iyagu ay yihiin in ay mas'uul ka yihiin ay dowladda la xiray. xitaa doorashooyinkii 2 toddobaad ka hor dhacay gobolada qaar ka mid ah gudoomiyaashii labada gobol ee Virginia iyo New Jersey waa kuwii ku guuleystay. sidoo kalena
arrintaas waxa la leeyahay marka xirnaashaha dawladda ayaa sabab u ahayd marka dimuqraadiyiintu hadda waxa la leeyahay iyaga ayaa sareeya oo mas'uuliyadda in dawladda dib loo furo iyaga ayaa iska leh republicaanku marka hadda iyaga ay kubadda hoostooda taalaa haddii ay sharcigaasi caafimaadka isbeddelka lagu sameynayo ay waxba ka qaban waayeen oo sharcigaasi ay diidaan dimuqraadiyiintu marka sabab ayay haystaan marka maadaama dawladda hadda miisaaniyaddeeda 9 bilood ayaa ka harsanaan doonto miisaaniyadda dawladda Mareykanku waxay bilaabataa bisha October markasto waa macnaha fiscal year waxa uu ku egyahay September 30keeda marka haddii hadda January 30keeda dawladdan la fangareynayo muddadan kooban ay ku egtay